sharuubka ama hilacgu yooday hoobaan bislaatiyo harawada biyaysan oo lagu hayaamo ubaltahankii uu raray wuxuu sii tiqiyaa qabo haddaa qadacsi loo jiro sidahugu sharuubka ama hilacgu yooday hoobaan bislaatiyo harawada biyaysan oo lagu hayaamo ubaltahankii uu raray wuxuu sii tiqiyaa qabo haddaa qadacsi loo jiro habboonee naftaydan digsi baad ku noqoto adaayidhaaye habboonee naftaydan digsi baad ku noqoto adaayidhaaye haddaad diido hadalkayga habeen waxaan nasiibkayga halkayga sugaya haddaad diido hadalkayga habeen waxaan nasiibkayga halkayga sugaya dabaylba isukay hareeyo sida hawtul hamagan hawaaqiri dabaxay haddaan haysto talada iboy kama hiisheen ku hood sheegteen haween haygu noqonine hanfiyo dabaylba isukay hareeyo sida hawtul hamagan hawaaqiri dabaxay haddaan haysto talada iboy kama hiisheen ku hood sheegteen haween haygu noqonine waxaa hiilay noqon lahaa halisiyo dhibitaan qabo adooyga hor joogsada waxaa hiilay noqon lahaa halisiyo dhibitaan qabo adooyga hor joogsada haddaad diido hadalkayga habeen waxaan nasiibkayga halkayga sugaya haddaad diido hadalkayga habeen waxaan nasiibkayga halkayga sugaya hanaanka iyo quruxdan iboy kugu jeclaado hablahaadu sidaka haybadiyo asluubte lahamiyey dartaado habeen socod ku waasho waxaan eegataaba hawada sariite hanaanka iyo quruxdan iboy kugu jeclaado hablahaadu sidata haybadiyo asluubte lahamiyey dartaado habeen socod ku waasho waxaan eegataaba hawada sariite waxaa hiilay noqon lahaa halisiyo dhibitaan qabo adooyga hor joogsada waxaa hiilay noqon lahaa halisiyo dhibitaan qabo adooyga hor joogsada haddaad diido hadalkayga habeen waxaan nasiibkayga halkayga sugaya haddaad diido hadalkayga habeen waxaan nasiibkayga halkayga sugaya haddaad diido hadalkayga marka aan ilaawaba waxisoo markii qiyon maqlo waa imaan